ma ku dhibin koolal, message iyo fariimo kaaga soo dhacaya WhatsApp-ka adigoo cashar akhrisanaya ama cashar dhegeysanaya. Haddii aad doonayso inaad iska xidho fariimaha WhatsApp-ka kaaga imanaya oo cidna aan WhatsApp-ka kaa soo wicin ama message aan kaa soo gelin WhatsApp-ka, waxaan ku tusi doonaa maanta farsamo aad u cajiib ah taasoo kaa caawin doonta inaan qof dambe ku soo wicin ama message dambe lagu soo diray aan ku soo gelin ilaa adigu aad ka furayso. Koolasha markaad mobilkaaga flight mode ka saarto in dadku ay WhatsApp-ka kaa soo wacaan oo WhatsApp-ka laga soo xijiyo markii laga waayo lambarkaaga caadiga ah shaqeynaya, adigana khadkii ka maarmaysid oo adigana waa isticmaalaysaa. Marka haddaba taa xalkeedaan maanta ku hayaa isoo raacina keen. Ugu horreyn waxaad soo gelaysaa WhatsApp-kaaga, kadib waxaad taabanaysaa saddexda dhibcood, kadib waxaad kasii dooranaysaa setting markaad ka doorato waxa aad tegaysaa halka ay ku qoran tahay storage and data markaad tagto waxaad tegaysaa proxy halka ku taalo, kadib halkan ay ku qoran tahay 1.11 ayaa taabanaysaa. halkaas waxaad gelinaysaa 1.1.1.1 kadibna calaamadda saxda ah baad taabanaysaa. marka calaamadda saxda taabato waad ka soo noqonaysaa, kadib halkan ayaad ka dhigaysaa on. halka markaad on ka dhigto sidaas saacada laga bilaabo number dambe oo kusoo gelaya ama fariin dambe oo WhatsApp-ka ka soo gelaysa ma jirto. WhatsApp-ka guud ahaan waxaad ka shartay internetkii, daatadii baad ka goysay, fariin kastoo la soo diro ama call kastoo laga soo waco ma soo geli doonaan. haddaba sida marka aad hawlahaaga soo dhamaysato aad uga furayso ayaan ku tusayaa ina mari. isla WhatsApp-ka waad ku noqonaysaa, saddexda dhibcood waad taabanaysaa, setting baad ka dooranaysaa. markaad setting ka doorato waxaad tegaysaa danta aan storage and data, kadibna proxy ayaad tegaysaa, kadib halkan ayaad ka dhigaysaa off baad ka dhigaysaa halkan onta ah. markaad off ka dhigto hadda fariimihii musicalladii WhatsApp-ka laga soo wacay wixii bay ku soo gelayaan. hadda WhatsApp-kaaga sida caadiga ah hore ayuu u shaqeynayaa. marka farsamadan waxay ka caawinaysaa marka aad doonaysid inaad cashar diyaarsato ama YouTube dhegeysato ama casharo online aad dhegeysato, aad mobilka flight mode ka saarto oo wireless ka isticmaalayso oo sidoo kale aad doonaysid in WhatsApp-ka laga soo wicin. tani aad iyo aad waxay si gaar ah u caawinaysaa dadka ardayda ah ama dadka inta badan wax baadhay ee waxaana la iskareeya. marka soo dhawaada, aad iyo aad baa u mahadsantiin. page-kana like-ta inoo saara.